bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxa weeye waa maalintii ugu horeysay ee aan stuudiyahan furayno bishii maanta waa 12kii bishii 6aad 2019 aad iyo magacaygu waa Saciid Yuusuf Qaalib ninka midigtayga xiga Xuseen Shukri aniguna waa Mubaarak Xoosh Gaashaan dhinaca waxa iga xiga nin dhalinyaro oo aad u xarago badan isaga ayaa magaciisa noo sheegi doona waxaa laga yaabaa badankiin inaad ii wada garanaysaan Rockstone oo qaarkiina waxaa laga yaabaa inaga aragteen YouTube-ka laakiin waa magacayga saxda dad badan ilaa hadda waa isweydiinaa waa Cali Axmed Dhagaxow Cali Axmed Dhagaxow anigu waxaan maqnaa Cali Xarago iyo magac kala badan uu leeyahay daawadayaal iyo dhammaantiin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan oo aan u soo gudbin doono barnaamijkan waxa halkaan aan fadhinaa oo ay tahay maanta maalintii koobaad stuudiyaheennii aan muddada ka shaqaynaynay ili kalena qayb qaadanay oo idin ballan qaaday inaan mataqaanaa stuudiyaheena markuu diyaar noqdo aan bulshada la wadaagi doono maanteeto halkaan 4 qof aad u jeedaan waa 4 qof oo mataqaanaa stuudiyahan ku shaqayn doonta shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonta fikradooda iyo fikradda shacabka Soomaaliyeedba ama ba ku marti qaadi doona shacabka Soomaaliyeed cid kastoo xiisaynaysa in barnaamijkan laga qayb qaato barnaamijkan ma aha mid anoo gooni anoo ah ama stuudiyahani wuxuu u furan yahay cid kasta oo doonaysa inay fikirkeeda shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed gaarsiiso maanteeto oo barnaamijkii koobaad stuudiyaheena oo diyaarsan oo qalabaysan oo dhameystiran aan ku furayno waxa weeye mowduuc aad iyo aad muhiim u ah mowduucaas oo ruuxaantii aad dadka reer Yurub ay u xiisaynayaan waxa la dhahaa minimalism waa fikrad ama falsafad يعني كوتشان قوان أما حمبارسن فكر كورانيا هانتيدا إيا لحاشاها تيرادا بدن فرحاد مكينا dad badan oo Yurub ayaa waxay go'aan ku gaareen waxay ku daaleen ama farxad ka waayeen hantida baabuurta iyo dhaqaalaha tirada badan saas darteed waxay go'aan ku gaareen inay hantida ugu yar iyo nolosha ugu yar ay ku noolaadaan fikirkaas waa fikri aad iyo aad u soo siyaadaya oo marmarka dambaysa dadka Yurub ay mataqaanaa qaadanayaan waxa muddadan aad u xiiseynayay Saciid Qaalib halkaan la fadhiyo waxaan weydiinaynaa minimalism maxaa laga wadaa ujeedadu maxay tahay hadafkiisu muxuu yahay Saciid soo dhow ma santahay sida laga arkay ama laga fahmayo eraygu waa cagsiga materialism iyadoo ah in qofku uu isku filnaysiyo wax yar yani haday noqon lahayd dhar haday noqon lahayd maacuun haday noqon lahayd alaabta guriga lagu sharaxdo intaba in ku filan inuu qofku isku filnaysiyo uusan ka badbadin runtii falsafadan ma aha wax hadda bilowday kumanaan sano hore ayay jirtay oo dadku ay ku noolaayeen hadda waxaa maqan baraarugii ahaa qof isagoo ku nool minimalism inuusan ku baraarugsaneen in lifestyle-kaas uu fiican yahay inuu ku noolaado example dadka hadda ana dhaqaalaha badan haysan dabcan waxay ku nool yihiin in isku filnaysiyaan inta ay haystaan laakiin haddii ay helaan fursad u saamaxaysa in ay helaan dhar badan waxaa laga yaabaa in lacagtooda intooda badan ay geliyaan dharkaas ama kabaha ama maacuuntaas fikirku waa fikir qadiima ama falsafadu waa falsafad hore islaamkana hadda soo cusboonaatay ha islaamkuna ugu horeeyo suubanaheena sallallahu alayhi wasallam dabcan waxaan arkaynaa inuu ahaa qof aanan jeclayn inuu ka badbadiyo haday noqoto cunto haday noqoto dhar way koobneed inta shay uu isagu milkinayay markaa waxaa la fikradu waxa weeye waa fikrad islaamku uu dhiirigeliyay laakiin hadda ka soo cusboonaatay wadamada Yurubiyaanka oo barwaaqo sooranka ah oo iyagu ku daalay hantidii badneed ee ka badbadintii dabcan saas ayay u eg tahay oo runtii helay fursad ah in qofkii uu juhdigii uu saari lahaa in uu ku qanciyo naftiisa material uu
si kale ugu raaxaysan kara dhaqaalihii uga soo noqday waxyaabihii ka badbadiska uu soo gadanayay wuxuu ku aadi karaa vacation adduunyada meelo badan uusan tegin ayuu tegi karaa sidaa awgeed qofkii nafsiyan ayuu u raaxaysanayaa waxaa ula jeedaa yani qofka asigoo lacagtii haysto laakiin waxyaabaha anaga dabiici inooga asal Soomaali ahaan yani markaan anaga teena ka hadalno for example haddaan lacag haysto oo kaleeto waxaa jirto waxyaaba iska simple oo aan iska soo iibsado hadday noqoto dhar hadday noqoto soo marka waxyaabahaas ayaa loo yeelamayaa limit naftii ayaa laga hor istaajinaya dabcan hadda maanta waxaa laga yaabaa markaa soo kacdid furtid Facebook ha noqoto hemsida ha noqoto waxaa kusoo maraysa intaasoo kun oo xayeysiis maalintii qofka indhihiisa iyo dhagihiisa intaasoo kun oo xayeysiis markay ku dhacdo dabcan wax un ka mid ah waa qalbigaaga uu taabanaya oo waxaad doonaysaa inaad soo iibsato waxaas صح minimalismka laakiin hadda fikir ahaan u qaadatid waxaad samaysanaysaa xijaab ama waad iska celin kartaa waxaan nafta waad xakumaysaa waayo nafta waxaa ku qancisay inay macna sameynay laba shaaraan haystaa ma soo iibsanaya mid saddexaad ilaa uu mid dhamaado okay adiga marka haddii maanta 10,000 oo mar lagu soo celiyo xayeysiis markaa waa adi ahaan ma isku dayday oo ma tijaabisay fikirku horta ma aha wax hal mar qofka uu wada qaadan karo laakiin dadka sameeya ama dadka markaan akhriyay ku dhaqma waxay ka bilaabaan horta guriga in ay nadiifiyaan waxay dhahaan Swedishka rensning ama gurigii in uu ka bixiyo wax kasta oo uusan u baahnayn haday dhar noqoto kaba haday noqoto maacuun haday noqoto waxaas oo dhan horta inuu ama sadaqaysto ama uu iibiyo ama uu qof siiyo مثلا أنا waxaan leeyahay saddex joog kaba hadaan rabo inaan ku noolaa minimalism maxaan sameeyaa waddankan hadda joogno maxaa u baahan tahay sanadkii xagaaga iyo jilaalka labadaas ugu filan markay ka markay barafkana kaba baraf u baahan tahay markay tahay xagaana kaba caadi u baahan tahay jambal ama mataan labadaas hadda haysatid wixii kale oo aad raadisid waa ka badbadis yani labadaas hadduu mid dhamaado waa soo iibsan kartaa ka saddexaad maxaan ku sameeyaa jooga saddexaad iibi ama sadaqayso ama qof u baahan siiyo walaalkan dood kale jirta dhahaysa kolkuu ilaahay waxoogaa ku siiyo dee ha kaa muuqato waa fiican tahay laba joog ku joog gabahiigu mubaarag uu ka hadlay wuxuu yiri waxa ii taala saddex joog aniga markaan ka hadlo dib horta isugu noqday oo wax soo baxday lix joog wallahi haddaysan 10 gaarinin 10 waa ku dhow yihiin ma fahanti kulligoodna haddii aan damca qaarkood waxaa laga yaabaa sanadba inaan xirin haddii aan damca inaan tuurane laha jecla ay garayso oo waxaa is leeyahay waa lacaga ka soo bixisay maxaa u tuuraysaa haddaa xuseen ka jawaabo su-aashiisa ha kaa muuqato waa sax minimalismku ma aha qofka inuu dhar jajeexan xiranay balse waxaa laga yaabaa in ay shaatigii gugii hore aad gudatay in bad wadan weligaa ha laakiin eeg waxaa jira hadda dhar raqiis ah oo laakiin aan quality lahayn minimalism wuxuu leeyahay quality-ga ama waxa la dhahaa tayada ay ka hormarinayaan tirada haddii maanta uu dukaan tago uu arko shaar tayadiisu fiican tahay qaali ah iyo saddex shaar oo tayadooda liidato oo laakiin la lacaga kan wuxuu qaadanayaa halka xaba ee qaali macnaha waxay u sameynaysaa shaarkaas waa shaar qurux badan marka koowaad marka labaad waqti dheer buu haynaya marka saddexaad dhaqniinkii saddex uu dhaqi lahaa saddexda shaati hal buu dhaqaya waqtigiiba usoo yaraanaya waxaa kaloo oo u safe garoobaya wixii ku bixi lahaa oo energy waqtigaas oo dhan iyo iyagoo kor dhamaanaya oo marka fikirkiinan haddii uu faafo waxaad khatar ku tihiin warshadaha wax soo saara iyo dukaamada iyo shaqaalaha sheekh xuseen laakiin markaad fiirsato dadka shacabka shirkadihii shaqa abuurka oo dhan baad markaa ku haysaan misadan kale iyaduna ka soo bixaysaa maya midda kale bal intaan taas u gudbin Saciid wuxuu yiri islaamku uu dhiirigeliyaa minimalism marumba anaad weydiinaysaa adaan ku weydiina macallin xuseen
أساس من رجينا يعني تهاي إنه قفكو سي كفاف وإنه لا ضد الدنيا ده لبس إياه عنطة إياه ديجان بقى سيدا وسيدا صوبناها صلى الله عليه وسلم كبوري أما دقن كيسوها إساقو صحابتنا لقى حالي مركا علماء تاريخ كسيبا جرت او سعودي من منازمك عام والذين اتبعوهم بإحسان ويكون ضيدين ده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكر كان أنا أقول لك سؤال وين ما إذا سؤال كويتيني سؤال كويتيني وحتى مينيماليزم كوحلية هي waxa ugu yar oo aad u baahan tahay ku noolo sida Saciid noo sheegay dabeecadda dhalinyaradu laakiin waxay tahay xaragada iyo dhalaalka inay jecel yihiin wixii cusubba caalamka jecel taas waxaad garanaysaa hadeertan inta aniga adigu aan kulano waxaa laga yaabaa inuu shaatigaada inaan 5 jeer kula kulmo adiguna 5 finaanood kula kulanto صاحبين كم هذا الشيء انت marka sidee loo mideynaya minimalism ee dhalinyarada horta haddaan su-aashaas ka jawaabo waxaana sugaysaan ani ahaan markaas ka hadlo 5 sanaad kadib ay sugaysaan ayaa laga yaabaa fikirkaas inaan qaato laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa Soomaaliyeed joogta waan ku soo wadaa sababtaan 5 sano aan u leeyahay waxay tahay waa la soo wada maray dhalaalka xilli baa jirtay anigu kumaan soo gaarin dawladda Soomaaliya laakiin xilligii dawladda jirtay dalka nabadda ahay waa la xarago jiray qof walba waqtigiisa soo qaatay laakiin hadda xilliga la joogo adduunku waa sii horumaray oo maalinta ka dambayso technology waa sii horumaraysa waxaan ku sii xiranay telefishin ku sii xiranay oo adduunku dhanaba wuxuu noqday hal il isku noqday soo wax Australia ka soo bax maanto waxaan rabnaa anagu inta joogno ama ku dalka joogo inay waxa seelaan ama ay sameeyaan marka minimalism Saciid wuxuu ka weyn waa minimalism ka marka waxaan isleeyahay ani ahaantayda qofka markuu sodan jirsado waa anfacaya marka falsafad ma noqon falsafad taani dhalinyaro inuu go'aankaas qaato aniga ordoo waan tijaabinayaa hadda ma jeclaanin هذول لبسن أتيشك أنا قرنوسي لكن ما لكن لبس كلمة جدا إيه وحان نري فكر كوا قف إنه سكوف في النسيو وحيرة كوبان ومركا يعني هدي أستراد نقطة أما يعني الله مش ما يو مع فكر سؤال بس كمان أدى علي ما تخن علي وأنا اللي يرى كبدي وش شيء كيسني هدو هالشهر أسبوع ومتابع وحلا قلت كان فقير كان محوي ما هو وصح وتاسع هذا سوودي أنا نفسي مركان كهذلو ما نقول بوح نجعل هاي مركان ما أنت حرنا هاي ما جعلنا هورت بريكو بح وأنا إسكب بدل مركان لو حرتها سو مركان ساس تيد لكن حسب بركي إنه يبتانو عليو لكن كم تاجنا كري هالشيء تاس لك دي بقول نقول قفك كل سوني ديس يعني قفك تسكو كل سونية درك معنوين مسمينين لكن تاكل سونيكم حتى لبا شهر قروح بدن حيرناي واسكو بدلو ويجي يعني قف يقوم مشغول مال لك dadka waxa u aragnaa dadka intooda marka hada isku kalsooneen in dadka dharka ku mashquulsan in adiga ku mashquulsan dadka waxa laga yaabaa maanta waaqic jira gabadhuhu waxay jecel yihiin wiilka xaragooda wiilashuna waxay xaragada ma diidin hadda eeg shaar qurux badan oo socdo ayaan soo iibsaday laba xabo igu filan labadaas xab wigi maalinba mid ba xiran kara hal mar aan ka dhax galo kalsoonina kuma xirno qof walbana wuxuu leeyahay dooq ayuu leeyahay maanta waxa laga yaabaa wax adiga aad jeceshahay laakiin dadka kaleeto oo markay kugu arkaan ay ku leeyihiin aniyo saas qaarkood dadka kugu raacin fikirkaaga laakiin aniga ahaantaydu markay timaado xagga dharka waa wax aniga ii dooq aroonkeed dadkan waxay ay si u fikranaysa iga aaminsiin the only thing waxa waa nafsadeeda inaan farxad geliyo oo aan u samayn karo nafsadeeda waxay ku farxad ay farxad ku dareemayso inaan samayn karo sameynaysa nafsadaada baxay ya u farxad maxay u baahan tahay waxaan u baahanahay inaan helo haddaan awoodo waa inaan helo sida kaamirada maalduuda soo gaday oo kale hamis diidaysadee bal waxa wajin marka والله زهد waaga dhalinyarada ahayd xuseen waaga wiilka yarka ahayd ma xaragoon jirtay
aan isaga jirnay zuhdi iltiraari baa ku qasbanay mid qasaba mid iska iltiraari mid iska duruufta ku riixaysa laakiin hadda dad badan ku jiro laakiin hadday horaan nahay fikir ahaan isbedelaan ما waxaysan noloshooda ما horta fikirkaas wuu fiican yahay laakiin waxay ku xiran tahay shakhsiga ma qaadanaya qaato laakiin cali markaan Soomaaliya joogo waxaan lahaa hal joogo kabaa markuu dhamaadan kuwa kala soo gelaysa laba shaati iyo laba surwaal ma laha loo jeeda laakiin inuu dhaqlaan ma dareemi jirin xaragaan dareemi jirin waagaas waay ahayd adduunku waa sii socdaa laakiin hadda waxaan niri dadkii European-ka ahaa ee nolosha joogay yaa waxay fahmeen in aysan farxad ku jirin meeshaas soo marka waxay aadeen dhankii zuhdigii waxay yiraahdeen waxaan dhaldhalaalkan iyo alaabtan badan ciriiri guri iyo nafs iyo lacag ka qasaarto intaas u bay u keentay ma jiraan dad caan ah oo hadda reer galbeedka ahoo ku dhaqma dadkan middle class ko dhan hadda shaqaalaha u badan ee dadka bulshada dhexe ah oo dhan way ku dhaqmaan laakiin fiiri dad badan oo caan ah oo way jiraan laakiin ma la oran karaa hadda dadka Swedish-ka Swedish ma ku nool Swedish-ku waxay gaareen barwaaqa sooran xagga nolosha ah oo aan waxyaabaha qaarkood macna sameeyay afkaaga caano lagu qabo waa soo wada hadalka dharku مثلا dadka gadaan dhalinyarada kale Swedish-ka labisku uma sameeyo macna weyn sax oo dharku macna uma sameeyo marka hadaan anaguna ka hadlayna waa shacabka Soomaalida dhalinyarada Soomaalida dadka Soomaalida ku noolaan kara minimalism yani macnaha laga wada waxa weeye qofku inaanu ka raadin raaxo iyo farxad wax badan oo isagoon awoodin مثلا qofku $100 qaata waxa laga yaabaa inuu $100 dhar geliyo uga doono raaxo marka si ay u kalsoonaadaan ma laga yaabaa inaan u baahana inaan gaarno heerka kobaca nololeed ee dadka Swedish ku nool yihiin si anaguna aan u dareeno inaan macna noo sameeyo waxyaabaha materialka waa su'aal culus oo meesha ku jirta laakiin waxaan isleeyahay horta ya anfacaysa minimalism maanta yaa u baahan inuu ku baraarugo sida hadda afkaada ka sheegtay sida hadda noo sheegtay waxaad tiri qof lacagta u qaatay ay xadidan tahay in uu lacagtaasi uu geliyo material uusan u baahnayn markaa uu isleeyahay waad ku qasban tahay maadaama meesha aad joogtid iyo dadka aad joogtid ay san u labistaan ama ay lacagta ay geliyaan waxyaabahaas adiguna geli fikirkaas in ama falsafadan in dadka Soomaalida ama siiba dhalinyarada inay gaarto aad bay u fiican tahay waxay ka dejin leedahay ayaan isleeyahay aniga xaqiiqa pressure ama culays badan oo saaran ayay ka dejin leedahay waayo qofku markuu yiraahdo waa lifestyle qof kasta garanay marka wuxuu leeyahay ani minimalism ah guriga alaab badan ma taal marka ma xishoonayo qofkii gurigii hadaysan alaab u oolin dhar badan hadduusan haysan qofkii yani ma oranay yani ma noqonay miisaanka la saaro macnaha qofka waa inuu ku qancay marka hore fikradan dabcan markuu ku qancay family ahaan iyo dadka ku hareeraysan iyo inuusan ka cabsanin markaa dadka soo booqanaya gurigiisa markay arkaan gurigiyo gambarkii waagii lagu guursaday weli yaala iyo maxaa la yiraahdaa sariirtii waagii gabadha ahayd iyo dhaldhalaal badan yaalaan meesha inaysan marka qofkii uusan dareemin maxaa la yiraahdaa caab iyo yaxyax uusan dareemin oo uu ku qanacsan yahay qaab nololeedkan uu doortay isagoo awooda inuu soo dhigo دربيga dhan doortay inuu mataqaan darbiga dhan inay huwiyaan maxaa la yiraahdaa dahye waaweyn iyo dahab iyo laakiin iskuma mid dhigi karno dhalinyarta Soomaaliyeed iyo dhalinyarta Swedishka haddii aad fiiriso dhalinyarta Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa for the last ugu dambeyn adiga 10 sano hadda ugu dambeeyay ayay yani lifestyle ka caadiga oo western ka ay ku nool yihiin si fiican u sii dhax galeen awal ma aysan way ka indha xirnaayeen badana laakiin dadkan waa dad nabad ku soo koray waa dad gaajaba arkinba macnaha fahansan soo weedar qofka markuu dharag dhaafo
markaasuu go-aamo qaadan karaa laakiin qofka markuu baahan yahay oo rabo yani wax walba inuu baroobeeyo adi markaa baahanta waxaa rabta cuno walba inaad gacanta geliso dhidhimisid testigeedu markaa ka dheragtid markaas ayaa joojin kartaa go-aan ka qaadan kartaa laakiin anisaa is leeyahay dhalinyarto ha gaaraan horta derbigiina soo taabtaan ha soo taabtaan markaasuu qofka go-aan ka qaadan karaa waa sax wey waa horta dhalinyarada soomaaliyeed badankooda fursad uma helin horta inay waxaan mataqaana 10 sano aad sheegaysa waxa wey waa in kooban oo kamid ah ayaa fursad u helay mataqaana waxa inay dhex galaan runtii laakiin inta ugu badan dhalinyarada soomaaliyeed waxay ku nool yihiin meelo aanay oolin fursadahan meelo badan oo Yurub yaala runtii saas darteed laakiin ka warrama haddii aan ku heshiino fikirkani waa falsafad ballaaran oo leh qawaacid iyo nidaam marka in aanu siciid siino inuu soo diyaariyo iyadoo nidaamsan oo cashar ah oo faahfaahsan aan bulshada soo banayno fikir fiican waa fikirkan anisa isleeyahayne waxyaabo badan uu bedelaya uuna ka bedelaya guryaha Soomaaliyeed barnaamijka maanta soo gabagabeynayna soo gabagabeynayna maadaama cusubnahay waxaan soo gabagabeynayna tijaabana uu ahaa sidaad dareemaysaan idinkuba daawadayaasha iyo dhageystayaashaba ma aha wax diyaarsan marka waxaa qayb wuxuu ka yahay micnaha aan tijaabinaynay mikrofoonada afarta ah siday u shaqaynayaan marka haddii dhaliila aad aragtaan nooc cudurdaar bishii maanta waa 12 June 1919 jarisa ma dhimale jarisa